beertan aadka u quruxda badan waa mid ka mid ah beeraha loo soo dalxiis tago ee ku yaala deegaanka Mayaraan oo dhaca duleedka Koonfureed ee magaalada Xeraale kana mid ah goobaha ugu quruxda badan ee ku yaala gobolka Galgaduud. Mayaraan oo ah deegaan waqtiyadii hore ku caan ahaan jiray ceelasha biyaha xooluhu ka cabaan hadda waxay isku bedeshay goobo loo soo dalxiis tago soona jiidatay indhaha dhalinyaro badan oo goobtan aan ku kulannay waxay ahaayeen kuwo waqtigooda ku qaadanaya iyo kuwa sawirra ku galaya. Inkastoo tacabkeeda dadaal badan uu galiyay Jiilaani Cabdiqani Sheekh Yuusuf weli waxaa jira caqabado ku gadaaman. Waxa igu kaliftay wadankan Galmudug la yiraahdo oo hadda Galmudug la yiraahdo oo dawlad goboleedka Galmudug uu ka jiro oo anaku xibinta ka nahay oo ka deegaankan ka mid yahay dhul beereed ma lahayn. Waxa lagu leeyahay qudaartii waxa laga sugayaa shabeelle hoose ka soo baxday oo gaari baa dhex kula soo jabay dadkiina qudaar buu u baahan yahay beledweyne ka soo baxdo buundadii baa biyo ku fataheen waa soo mari weyd marka sidaas la ajligeed baan waxaan fakarnay in dhulkaaga inaan isku day sameeyno inaan dhulkaaga wax kala soo bixi karno qudaartii kala soo bixi karno mirihii ku samaysan karno aan tabacaas inaan sidaas u galno sidaas ay u kaliftay weli marka hadafkii isku daygii waa wadnaa weli miro dhal weyn kama aanan gaarin aad wax nooguma dhalin beertu weli ma dhalin liintu weli ma qaan gaarin dalagu biyo la'aan iyo waxba iska jira waa motor waxa laga waraabinaya motorku waa iska jabaya cid naga taakuleynaysa lama arko marka ninba tabartii macnaha tabartaana la hadhay waa kuwan qaar ka mid ah dhalinyarada asbuuci laba jeer goobtan isugu imaada si ay waqti ugu qaataan sawirana ugu galaan. beertan waa sida wada arkaysaan dhalinyartu si hadda u dhooban tahay beertan toddobaadkii laba mar aniga shakhsi ahaantayda imaada sida khamiista iyo jimcada oo xilliyada feestada badan ay tahay waan soo aadaa waxaan u soo aadaa inaan waqti badan ku qaadano anoo dhalinyaro badan ah oo sawirro fiidiyoyaal wax walba waan u soo aadnaa saastaan waxaan ku kulannaa dhalinyaro badan oo ka kala timaada gobolada sida Galmudug degmooyinkooda kale. meeshan waxaa u imaada maanta inaan ku dalxiiso waa goob aad u qurux badan waa goob nasashada ku fiican maasha Allah aniga qaas ahaan meeshan waa ka helay waa meel soo jiidatay aniga toddobaadkii marba imaada waxa kale to meeshan dhalinyarada waxa ugu baaqaya inay meeshan imaadaan waa meel maasha Allah aad u fiican dhalinyarada u fiican dadka waaweyn u fiican sida maalmaha fasax oo kale to dhalinyarada waxaan dhihi lahaa imaadaan. Inkastoo gobolkan Galgaduud ay yartahay in laga helo beero ay ka soo gaayaan dalagyada noocyadiisa kala duwan haddana beertan waxay u muuqataa mid dadka deegaanka ha qabtiri doonta. Xuseen Cali Xuseen warbaahinta qaranka magaalada Xeraale.